hooyada halkan ka muuqata ayaa buudka kula tumatay cariga iyadoo ku nool waliba cariga Ingiriiska iyo wadamada kale ee gaalada ay ku badan yihiin iyadoo ku nool waxay buud kula tumatay qoomaloodka loo yaqaan ayaa wax isku dayeen iskuulka ay Soomaalidu ku badanta 40% ilmahooda ay dhigtaan populationka ayaa waxay isku dayeen inay keenaan barnaamijkii foolxumada badnaa ee qoomaloodka kadib hooyadan ayaa ku hanjabtay inay iskuul gooni isu taaga sidii maamul goboleedyada oo kale gooni isu taaga inay dhisan doonaan hadii joojin waayaan falku xun ay rabaan inay baraan ilmahooda yaanan kugu daalin wari dhamaantiis bal fiidiyowga ila daawo hooyada Soomaaliyeed si u difaacday diinta akhlaaqda iyo ubadkeeda sida u difaacday waa kanay ka bagasho wacan Thank God. aniga waxa la yiraahdaa cibaado aadan. My name is Ibada Adan. Sangaloor waxaan deganahay 16 sano. I've been living in Singaloor 16 years. waxaan la soo degay ciyaal 7 ah. I came here with my 7 kids. waxaana iigu dhalatay 9 ciyaal. I have another 9 kids in Singaloor. Hold on. Okay. I have 9 kids for grandchildren. Sorry, grandchildren. wadankan aad baanu ugu badannahay. We are most of the population in Singaloor. Iskuulka ilmaha ay noo dhigtaan boqolkiiba waxaanu ka nahan malayn Singaloor 40. Okay, in Singaloor school, the population of the school, it's most of it, 40% it's Somali students. waxaanu dhibaato badan baanu sheeganaynaa. We have a lot of concern dan waalidkiin nahay as a parent. annaga hanti ma haysano ilmaan ma haysanaa. Okay, we don't invest our wealth, it's our kids. marka dad lacag laho hanti laho guriyada manihin laakiin waxaan dareemaynaa ilmaan haysanaa ilmaha yagaas inay wax noo qabtaan. So we are rich and our regions, it's our kids. So we are just investing our kids to be a next level or next generation to take over when we are. ilmihii waxbarashaan u soo dirsanay. We sent our kids to learn. waxbarashadii wixii ka koreeya ma rabno. We don't accept anything that above the educational. idin waxaana lagu dhigayaa iskuuladii wax ilmihii noloshoodii baabi'inaya. And what they are teaching our kids is something that will totally destroy our kids' real future. annaga diintayadana maaha dhaqankayagana maaha akhlaaqdayadana maaha. Okay, our culture, our religion, and our principle is not something that or our logic mind will accept the program. aniga oo bulshada dareenkeeda wada. As I speak in most of the population of the Somali community, waxaan idin sheegayaa I am saying to you, inaanaan annagu arrinta ayadaa raalli ka ahayn. I'm saying that as a most of the community Somali, wax kastoo ay nagu qaadatan aanan ka hadhayn. as I speaking of behalf of the most of the Somali community, it's we don't accept that program and we will do everything that we can to just abandon that program. annaga codkayagaad ku joogtaan. You are as a board meeting, you are working or you have this opportunity because of us. marka waxaan rabnaa inaad waxaanu idiin soo gudbino aad wax ka qabataan. So what we want is we need you guys to do our concern, to do anything that you are capable that to find solution for our concern. wadanka kama guuri karo. We can just decide and move and pack our bag. ilaa heerstar ilaa high school waxaad nagu kalifaysaan anagu inaan iskuul la samaysano. So it's you are guys forcing to us to have our own school from Head Start to high school. marka dhibaato nooga imanaysa. And there will be a lot of devastation. marka anagoo idin tixgelinayna anagana waxaan rabnaa inaad idin tixgelisaan. We are respecting you, so we need you guys to do something. maadaama ood boardkii tihiin. Since you are board meeting. qoladii waxaan sixinaysa aad tihiin. Since you are the community or the group that will take the next level to find a solution. qoladii ama wax diidaysa ama waxaan sixinaysa. Since you are the guys, a group or the people that will
do, Marka- yes, we can stop, and or no, we cannot, we can continue. marka waxaan rabnaa annaga ilmahayaga inay badbaadaan So what we need is to save our kids, inaad nagu garab qabataan baan rabnaa and we need you guys to help us. aad baan idin salaamaya Thank you so much. I appreciate it for the listen. waa ka baxsatay hooyadan Soomaaliyeed waa ka baxsatay waxay ugu hanjabtay gaaladii haddii ay joojin waayeen qoomuluudkan inay iskuulaad hoos ilaa ay dugsi sare kor laga gaaray ilaa heer jaamacad hadday doonto ama noqoto inay furan doonaan ay Soomaalidu isku tashan doonto yaan Soomaali ahaynoo sidaan wax u gali kara yaan Soomaali ahaynoo diinta sidaan u difaaci kara yaan Soomaali ahaynoo dadkeeda sidaan u difaaci kara xaggee joogtaa wadan gaale joogtaa Singaloor ayay joogtaa meel ay ku taalaba ma garatay gaalada ay ku badan tahay oo islaamka waliba uu ku yar yahay haddana waxay difaacaysaa diintay difaacaysaa dhaqanka wanaagsan bay difaacaysaa annagana kuwa maalin dhaxdaas meeshaan lagu shisheegayo waliba buuq weyn ka dhacay ii sheegay magaal madaxda dhan Soomaaliya golay baarlamaanka dhaxdiisa Soomaaliya ayaa islaan dhan la soo istaagtay la sheegay hooyo Soomaaliyeedna waa taas waxay ka difaacaysaa intaasoo boqol oo kun oo mayl meelo noo jiraan ka koro dibida ay ka difaacaysaa diinta iyo akhlaaqda ay ka difaacaysaa wax walbaba ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa bixiyo ilaahay qofku jecel yahay diinta ayuu fahansiyaa diinta ayuu noo baraa saaxiibayaal fiidiyogan share gareeya waana taxana qaybo badan aan soo wadaa oo waraysiyaashaas lagu samaynayo Soomaali badan waa next videogana insha Allah tacaala ma oganaanin noo share gareey sharta ku qabo nacala shaydaan ku yaale